هود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وذيك قاعد سود وهذا وواسك دقبلوها قبلو فارح ولا الكيس معه كي كيرا بشير بالله مطنين عز قول ساعب كيس قرشوا درس كيس كنا ولا وراءنا قرسيكو ساها جاب كجالكت مع الشورية بناوين شنطة بقى بغوري رينا بدينا لسود وهذا دمانتي وهذه سلامة يا عجلة الشرقرية جارسية بيتش والبا إذيكم حسن يا رزاق يا فتاح بانو لنا أرد الدولة الصومالية وقولي ستي إن شاء الله هدو إلهي رادو عدونا ويكقولي سريسا انت على وربحنت بالله بين با وحير نمك فرماجة كو شقيو أرتا نقول عقنا وسيسارد دولة دمدة الصومالية يعالك الصومالية يمدحوينها إلهي فرجيقا وقدقا الصومالية يارو تاقير سنة آديات مركا هنقول دارينا مقرسا شغالا حفيزكينا كشقيو هاي نقول دارينا آديات وآد باكو عمبارينا يا آديات باكو عمبارينا مدحوينها الصوماليين وحن ليه مدحوين الشريف كيبا ميسو كفيعنا نيكي شريف كاهم ninkan kale cusub waxa weeye wacaaladiisu waa bariga dhexe xasuusin iyo hadalla loo baahnay buu dadka xasuusinaya marka anigu ma soo dhaweynayo shariifkiiba ku fiicnaa position kama garataadiyad marka intaas aan arinta kaga tagaya soo dhawaada ma sha Allah nabad iyo nolol waa guuleysatay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo since 2017 yaanu garab taagneen waa la dhacaynaa waa la dhimanaynaa insha Allah haduu ilaahay yiraahdo xilkana waa wareegta meerta weey waa xil wareeganayo oo meerta aadiyad soo dhawaada ma sha Allah inta ninka arinta halkaas u dhaafi maayo insha Allah hoos ba loo wadayaa haduu ilaahay yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka guuleystay cadawgii oo idilbu ka guuleystay wallahi been ma ana duqbirowe يا لايف سوغلي مددر halkan ad hadda iga daawanaysaan yaa live soogalay habeen iyo maalin waxaan ku celinayay ninka la yiraahdo Sheekh Shariif iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo saqiirka siyaasadeed iyo ninka la yiraahdo Inamako intaba inay yihiin rag qabiilistayaale waxay sheegteen oo title ka dhigteen musharaxiinta madasha musharaxiinta wax la yiraahdo waxaan anoo duqbilowe umada garaysaay u soo gudbiyay oon eri war nimanka madalna maaha musharaxiinta Soomaaliyeedna ma matali karaan ee waa niman mooriyaan ah xilkana markay qabteen ku fashilmeen siyaasadana aan garanaynin oo qabiilistayaal ah yaano duqbilowe ku yar dhalinyaro badan iyo odayaal badan iyo dad badan oo bartan iga daawado yaa waxay lahaayeen war duqbilow war madaxdii hore dalka soo martay shaabadan aad ku dhufanaysid waa maxay waxaana ku lahaa oo ku soo celinay war waxbaan arkaa wax badan idinku waxa weeye laba socotaan duqbulo waxbuu la socdaa nimankan waa qabiilistayaal qabiilad isku dhaarsaday Soomaali aan dan ka lahayn qabiilada ay sheeganayaan aan dan ka lahayn oo dhacay hantidii ummadda Soomaaliyeed weeyaan idinku yiri dhageysto in badan baan ku soo celinayoon lahaa war waa qabiilistayaal madaxweynayaasha isku qabiilka siyaasiyiinta fashilmay ee qabiilada dabada geliyay baan idinku lahaayay dhageysto shalay bay cadaatay marka arinta iyada shalay bay cadaatay waxa weeye hawiye ilaahay baa laan dheera ka dhigay hawiye hool ma qaado ana idin sheegay dhageysto beesha hawiye la yiraahdo hool ma qaado لكن أفر عادقات طيالة أو شلمات $6 داد سيي يا هول السقوطين وأن مكي شيغانا يي إلى يهين مدحدي دالك صومرت نصيب وناك ومدى الصوماليات وحي أركتي وسعد الله أركي إن حسن الشيخ محمود إيا الشيخ شريف أو بور كو قرية هاي قبيل مقعيسة كو قرية هاي إلى هوست هاقنايين والله أنا نبانين بور قبيل كو قرية هاي oo magac qabiil lagu xardhay oo la leeyahay beesha hawiye ayagoo mikrofon wato inay hoos istaageen waana fashilkii ugu weynaa ee ku dhaco raggaas shalo ku dhacay meeshii ay isugu tageen wixii ka soo baxay ummadda Soomaaliyeed oo idil way arkayso heerkay maanta siyaasadda ka gaartayna waa loo jeedaa ummadda Soomaaliyeedna way arkaysaa
annagana waan ku dhalaalinaynaa siday tahay baa boogta ay ayagu leeyihiin cusbada loogu sii shubayaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo xasan sheekh maxamuudow iyo sheekh shariifow waxa weeye farmaajo hawiya beesha la yidhaahdo asaa idinka xiga maanta oo wallaahi inana beenahayn farmaaja wuxuu idinka xigaa qabiilka aad magaciisa dulaysateen eed magaciisa baabi'iseen ee siyaasiyiintiisii sharafta lahayd karaamada ka qaadeen farmaaja idinka xigo oo wallaahi oo billaahi oo tallahi inana beenahayn dhagayso hawiyaha ma garanaysaayee hool ma qaado hawiya waa soomaali qabiilka ugu badan weyn madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo in reerkaa la dulminayo oo idinka dulminaysaan oo siyaasiyiin sax aadan ahayn la idinku shaqaysanaya markuu arkay reerka aad sheeganaysaan farmaaja soomaali oga hiiliyey 13 kursi buu siiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gobolka banaadir majoritigiis oo wallaahi inana beenahayn xasan sheekh maxamuud adaa diiday ninka la yidhi cabdiraxmaan cabdishakuurow 13 kursi ee farmaajo uu u saxiixay adaa ka hor yimid oo diiday dhagaysta hawiye waa laandheero weeye hawiye dantiisa waa yaqaanaa hawiye labaa loo kala qaadi hawiye waa laandheere culummo ah oo bartaa degan siyaasiyiin ayay leeyihiin kuwa qabiilka waa loo jawaabayaa hadal jawaab oo sax baan u soo wadaaya dhagaysto siyaasiyiin bay leeyihiinoo waxaa maanta siyaasadda hoggaanka u hayo ninka la yidhaahdo ra'iisul wasaare rooble ayaa hoggaanka u hayo maanta 4.5 ku matalaya meesha hawiye waxay leeyihiin maamul goboleedyo ay madaxweynayaal ka yihiin waa hirshabeelle iyo koonfur galbeed qoorqoor iyo guudlaawe ayaa qabiil ahaan reerka siyaasadda ku matalo ummadda Soomaaliyeed bay la mid yihiin dhagayso intaana sheekh shariif iyo nimankan kale aan dib ugu soo noqon yaa waxa la hadlayaa reerka la yiraahdo habargidir ee maanta colaadda ma garanaysaa la raba in dhufayska looga dhigto ee la raba hooyooyinkooda in la barakiciyo ee maanta loo kaambeen gareerayo ee la leeyahay habargidiray kaca habargidiray istaaga habargidiray qoriga qaata habargidiray baxa ay siyaasiyiinta ku kaambeen gareerayaan su'aal baa la weydiinayaa runtaana loo sheegayaa dhagayso gabadha hawiye ee habargidir iyo wiilka hawiye ee habargidir su'aal baa maanta ku hortaal dhagayso waxa loo ordayo ee siyaasi u ordayo waa inuu xukun qabtaa waxay qabiilada sadbursiga 4.5 kugu ordayaan waa inay xil iyo dad garanaysaay ay meel ku matalaan bay ordayaan habargidiray maanta awoodda dalka ugu sarreyso yaad matashaa ood maanta xukunta cafiiskii ra'iisul wasaaraha ayaad haysaa awrkacsiga siyaasadeed ee rag siyaasadda ku soo fashilmay oo idinku bahdilay Soomaaliya qabiil ahaan maanta idinka erayo berri hadday waxa ay wadaan ay ku guuleystaan habargidir baa la weydiinayaa dhagayso abgaal baa madaxweyne qaadan adigu hal wasiire kelibaad qaadan habargidiray mar walba siyaasi caraysan ee xanaaqsan ee shaqada laga fiijiyay ee kartidiisa wax ku qaban waayay ma siyaasaddu kugu orkacsan war habargidiray maanta dalka adaa ugu sarreeyo oo ra'iisul wasaarihii dalka ah xukunkan maanta adaa matalayo wax kaaga maqan Soomaaliya siyaasadeeda iyo 4.5 ma jirto habargidir reerka la yiraahdo wallahi inana beerahayn habargidir reerka la yiraahdo 4.5 maanta wax kaaga maqan oo cabdiraxmaan badagate uu kugu kaambeen gareeyo oo maanta u yiraahdo reerka nagiyow xaq baa inaga maqane kaca istaaga uu ku yiraahdo maanta ma jirto ra'iisul wasaaraha dalka ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble waa nin habargidire oo hiraabe oo laandheera oo ilaahay dhax dhigay sacad siciid beel la yiraahdo oo degan gobolada mudug la yiraahdo dhagayso hawiye xakama maqano hawiye intii daacad ahayd madaxdooday aaminsan yihiin ayidsan yihiin shaqadooday wataan kac iyo barakacna diyaar uma aha dhagayso xasan sheekh maxamuud wuxuu u ololeenayaa u ordayaa oo kaarka qabiil ula soo baxay oo u leeyahay hawiyaan nahayay uusan u xishoonayn xukunka asaa isla rabo asaga hadday ka wareegtana ninka la yiraahdo xasan sheekh wuxuu la rabaa sheekh shariif hadday ka wareegtana cali cusublu la rabaa waa habargidir bay hadalkan uu ku socdaa
markuu xukunka ayaga way qabtaan wallaahi baadan habar gediray ra'iisul wasaare noqonayn waxaad qaadanaysaa hal wasiire oo qudha kaliyaad qaadanaysaa waa hal wasiire kaliya yaad qaadanaysaa markaas waxaa weeye haddar mucaaradad kaleeto iyo howlo kale waxaa weeye waa dhib badan tahay dhegeyso marka hawiyaan si guud ula hadlayaa hawiye yaan si guud ula hadlayaa oo jamac baan ula hadlayaa war farmaajo wuxuu jilibka u dhigtay oo dagaal qabiil oo reeraysan loogu qaaday 13 xubnood oo aqalka sare ah oo gobolka banaadir helayso yay axmed madoobe iyo dani ku kala dhinteen siyaasadda ugu weyn ee la isku hayay ee 4.5 ka ku salaysan ee uu farmaajo yiri war aan kala roonaan oo raggan u siideena uu ku yiri axmed madoobe iyo dani wada hadalkii ugu dambeeyay September 2020 markii la joogay muqdisho ee magaranaysa ee mucaaradka banaanka ka joogeen maamul goboleedyada kala banaanka ka joogeen oo ragga isku reerka ah ee beesha daarood Ismaaciil u dhashay isku soo hareen axmed madoobe iyo dani waxay yiraahdeen wax walba waan idinka tanasulaynaa farmaajo wax kasta waan ku deenaynaa doorashada sideeday u dhacaysaa xaaladdu si wanaagsan bay u dhacaysaa laakiin nimanka hawiye hay naga hormarin oo 13 ha u saxiixin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu yiri hawiye ma siinna gobolka banaadir baashi hadduu ilaahay majority uu ka dhigay oo bartan degan yihiin xaq bay u leeyihiin iyo may farmaajo reerkii daarood Ismaaciil aha yaad hoos u dhigaysaa wallahi inana wax kale ku dhig reerkii daarood Ismaaciil aha yaad hoos u dhigaysaa kada arrintaas saxiixin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa weeye waa u dhabar adeegay geesinimo qaatay hadalka markay isku fahmi waayeen yee magaranaysaa saxiix September u dhacay wuxuu ku qabtay qalinku ku dhufto wuu saxiixay 13 aqalka sare wuu saxiixay ninkii diidanaa ee reerkan hawiye inay 13 helaan u diidanaa cabdiraxmaan cabdishakuur buuha oo idaacadda si toos ah uga hadlay wuxuu ahaa xasan sheekh maxamuud oo idaacadda si toos ah uga hadlay oo yiri maqaam yeelan mayso matalaadna yeelan mayso magaalada muqdisho ragga maanta oranayo qabiilaanahayay qabiil baan matalaynayay dagaal baanu qaadeynayay xabadda dhacaysay qoryaha noola qaada ragga kule maanta hawiye waa raggi xaqaaga diiday oo wallahi oo billahi xaqaaga diiday weeye ee waliba fiiriya haddii hawiye wax loo tari oo maanta wax loo qaban oo wax loo sameeyo siyaasiyiin wax bartay oo aqoon-yahana ma isweydiisay muxuu qoorqoor ku qanacsan yahay ilaa waa 4.5 waxaan la isku mataliyay muxuu cali guudlaawe ku qanacsan yahay muxuu gobolka banaadir ninka gudoomiyaha ka ah ee la yiraahdo Cumar Finish muxuu ku qanacsan yahay la waa siyaasi wuxuu ku qanacsan yahay oo uu dareensan yahay in gobolka banaadir majority-giisu ay matalaad heleen ayaguna soo dhiciyeen yay aaminsan yihiin laakiin raggii diiday kuwii dagaalka jilibka u dhigtay ee yiri dhici mayso in hawiye daarood looga badiyo yay ninka la yiraahdo xasan maxamuud iyo ninka cabdiraxmaan cabdishakuur dabada geliyeen bal weydii gabadha hawiye iyo wiilka hawiye iyo odayga hawiye ee maanta ilaa idinkaana baray in magacaanaad boorar ku qorataan oo siyaasadii aad ku dawaqisaan qabiil idinka ina baray bal waxa weeye hawiye iyo wiilashooda gabdhooda weydiiya waxaad weydiisaan raggan madaxda sheeganayo ee qabiilistayaasha ee hoobiyaha hadda soo tuurayo ee shirarka qabanayo ee siyaasadii looga guuleystay ee aqlaantu ayso weydiiya waxaad tirahdaan waan idin raaceenaaye maxaad ugu diideen hawiye inuu 13 kursi oo cusub uu ku yeesho golaha aqalka sare baarlamaanka maxaad u diideen orodhaha weydiiya oo su'aasha weydiiya ha iska sabcinina sidii magaranaysaa loogizidii maalin walba markuu idin hor yimaado ha iska sabcinina dhageysta marka wuxuu idin sheegay nimanka saan ugu cilcilinay ee idin lahaa waa qabiilistayaal qabiil ku heshiiyay dalka Soomaaliyana dan aan ka lahayn maanta ma cadaatay oo banaanka ma imaadeen laba madaxweyne iyo saqiirkii siyaasadeed ra'iisul wasaaraha ahaa iyo ina mako waligiiba looga in intay boor qorteen ay yiraahdaan annagu qabiilistayaal baanu nahay duqbiro waxba nagama galin wiilka boora ma joogo iyo gabadha boora ma joogto waxba inagama galin ee dadka Soomaaliya waxba inagama galin qabiilistayaal baan nahay si cad oo bareer ma u yiraahdeen dhageysto marka waxyar
ها ويرادين وطلي هوريتو سردون كالصوماليا وحالة يرادا عبد الرحمن سنبلوش وحو ست هوسة oo aan gabasho lahayn oo aan dhuumasho lahayn oo hadalka aan la siyaasadeynaynin oo hadalka diblomaasiga uusan ku hadlin yu si toosoo cad wuxuu u sheegayaa uu leeyahay oo oranayaa Soomaaliya waa inuu ka noqdaa madaxweyne nin hawiya nin kaloo Soomaaliya madaxweyne kama noqon karo kaasaa dadka ummadda Soomaaliyeed suud intuu u soo xirto oranayo siyaasi Soomaaliyeed bana shalayna wuxuu ahaa diblomaasi ambassador oo magaca Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed igu matalayo ham darraata wuxuu ahaa ninka haysta taliyaha dhan ee sirdoonka Soomaaliya ee sirtii Soomaaliya haday dibadda iyo gudaha noqotaba lagu aaminayo ahaa maantana wuxuu si toos oo cad u sheegaya uu oranayaa ninaan hawiye ahayn Soomaaliya madaxweyne kama noqon karo Sambalo soo jawaab baan ku siinaya lebi codkaaga dhageysiin dadka waxa la doon aan laga yeelin waa shabaab ama nin muqdisho jooga oo power garaabin ama hunguri siyaasadeed oo extraordinary qaba ama dawaayir kale xitaa naftooda nimanka la yiraahdo hawiye deegaanka muqdisho saldhig u yahay siyaasadooda waxay ahayd jantarogan wax jantarogan oo baraka kana ma yeeshan mara min dhalaan naa waxay tahay marka wixii iska nationalism ka ahayo wixii maxamed siyaad barre oo Soomaaliya ha noolaatay degdegtii ma shaqaynaysa hadda federalismki ilaa hadda waxa ka soo noqday inkastoo ilaa had ka fiican yahay kuwa kale Soomaaliland go'intooda ma shaqaynayso horta waqtigii waxaan la review garay lahay waaba tahay laakiin ka soo gudub haashu wuxuu yiri markay jabto moogtaa nina shafki uga fadhiistaan nina loo uga fadhiisataa wardiba nin walba wax guud oo naga dhaxay jiraan waxa ku gaar kaana adiguna xaliso kadib adigu waxa xalisay Soomaali meeshay xaliso keeno aniga waxaan advocate gareena waxay tahay maalinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhintay xukunku waa la isku qabsaday waxa isku qabsaday muhaajiriin iyo isheega ansaartii isheega Madiina loogu tagay nimanka Madiina waxay dhaheen xukunka anaga rabna kuwa kale anaga rabnay dhaheen ilaa markii dambe la yiraahdo عرب مية ليس أما إسلام يبدو مش قين ليس هدي قفك النبي محمد دلها قريش يصنعه specific على شيء قفك today Somali بالبادين عيا هدوسن هوين نقول Somali ما هجاجيش this is what I believe وطريقه هراء سردوك الصومالية وسنبلوش إنكار الله كجوره بيل رمضان بعد أمضي الصوماليين هذا مسؤول صون نقضي النوع وهالليس وحيري دين الإسلام كمشقين يسال يري إلا أي قريش حكم كقبته وحتاجي ما ترى صوماليا مشقين يسو إلا وهوية مدحوينه والجي النقض تاس جواب بذلك سنك اللي يرادو سنبلو شو دقيش صوماليا ويكلتجي هذا ساز آمين سنتي ويكلتجي نك كل بقبو كل رفاضيو كل بهدلانيو وبيجا وكل فتهيو سنبلو شو وعذيك حتى هويك كلنا معه عوان يهو عوان ككلدرين هويك كلا حتى نبعته كل عميسو وضد عاصمة الدجن صومالينا قبل هذا الدجنتاي وحلقوا شيئا وقرن ماذا ومد الصوماليات أذو كلا إن أنت لقت تقروسو هر لقى السعودية الدورية يدقيس هداد نوع آمين سنتاي سنبلو شو دقيس هداد نوع آمين سنتاي والله ذا الدين بمجري لهين حكم كقريش وبيناراتاي كاذبة إلهي مقرساي أكتيس كفو هذا باتاي دقيس مركز سنبلو شو هذا الكيك هذا دقيس هداد نوع آمين سنتاي أود آمين سنتاي صومالي إناي كراتوت أود آمين سنتاي إن قبيل لا يسدلو أو لو كرياعو أدر معانا بلد وين باد دقنتاي نينك اللي يرادو سنبلوش نينك مالين والبلو قارامو $20 لو أروريو وبيغا وكسو فتها صومالي أباهن وعديغا ويه سنبلوشو عوان أنفاسنين أقون أن لهين دروكسن وأغلقيسا وكو كان ترولو أياتهي أنا كو جوابي يدقيش والله بين ما هوياها كلا حيبي دقايهين بيانا كمسو فد هذا دولكا صوماليادا كلا دقايهين والله بين ما لكن سنبلوشو هذا نوع آمين سنتهي أو قابك وهد ليسد تيروتا لقوش يدقيش نيكا لو قارامو aan koomboyinka iyo warqadaha intaan u qaadanna maalin walba aan u tuugsi tagno hooyadii biyaha ku soo fatahaan Soomaali u baahan tahay Sambalo soo waa adiga wallahi baysan Soomaali kale u baahnayn
laakiin ninka Soomaalidiisu iyo dadkiisu u baahan yihiin dowladnimo iyo Soomaalinimo iyo ma garanaysaa in la caawiyo iyo in qaaraan loo guro markuu wabiga ku fatahaba waa adiga Sambaloolshow qof kale ma nin kale ma waa adiga naftirkaaga weey والله بان بيرهين أذيك يا صومالي أبهن غير كاجا صومالي أبهن عدادا صومالي أبهن الدقيش عدادا أيا صومالي أبهن أو حقيقة عدين لك هيا والله بين ما أو حقيق رب أجرته دقيش تبرك هداد مقرر ساي نوع أسوها اللسان قاب كأمستين أو صومالي كلا تكتو أو لك لا دقاقو حسن شيخ محمودو إيا شيخ شريفو هو يوين كينات كهيلسان والله بين ما وابي صومالي كلا تقطي غير كان عاد مالو والبفيري صومالي قبائل بدن بجر داروس وعيلو مقرس إلا لقياس إلا تضبية 8 مليون لقياس يا صومالي يدقن ودارود ليرا والله هو ودقيه ماشى وكؤاسية ماشى اللي يراهدو الله مستعان بدلان وكؤاسية وقبرجيس الله يقول هاي وعدينه مقرس هاي قبرجيس صحيح haddana arki maysid 17 milyan ee beesha daarood u dhalatay oo intay meel fariisato ama boor qoranayso oo oranayso annaga reer hebel ah yaa shirayno oo magaranaysaa siyaasadii Soomaaliya yaan magaranaysaa nooca kale miyaad aragteen war miyaad isla yaabtaan oo dib intaad isu fiirisaan siyaasadan iyo qabiilkan dhaqanka ah magaranaysaa kala saartaan isaaq baa jiro oo Soomaali weyn 3 milyan ka dhaxa oo dir la yiraahdo miyaad aragteen niman isaaqe oo intay meel fariisteen boor qoranayo oo oranaya siyaasadda iyo qabiil yaan magaranaysaa yaan isku qaldeena oranay miyaad aragteen waa may waa maxay xasan sheekh maxamuud oo madaxweynihii dalka soo maray sheekh shariif oo madaxweynihii dalka soo maray iyo taliyihii sirdoonka Soomaaliya inay sida u hadlaan oo xishoon waayaan oo protocol-ka siyaasadeed ay gara waayaan warwaad ciwowdeere reerkan hol ma qaade reerkan ceebta ka daaya rag noqdo oo ragga siyaasadda buug iyo qalin bay wataan meel baa lagu qoraya meel baa lagu gorfeenaya asxaab iyo siyaasiyiin baa la sameystaa iyo xisbiyaa la sameystaaye reerkan aad magaciisi disheen eed baabi'iseen ee aad bahdisheen ee aad ka dhigteen dad la gumeeyo wallahi been ma xasan oo dhageyso markaa fiiri qabaa'ilada kale oo dhan waxay aaminsan yihiin inay Soomaali yihiin siyaasadana mid uu ku matalo ama ha waasho ama ha fiicnaado ama nin xun ha noqdo reerkan aad ka dhigteen sidii African American xasan sheekh maxamuudow African American noociisi aad ka dhigteen Black Lives Matter oo magaranaysaa sympathy mar walba raadinayo ilan cadaanka wadamadan aan joognay qurbaha iyo Mareykanka hadda ku noolna ma arkaysid dad cadaane ama Irish ahaadaan ama European kala ahaadaan ama meelaha kala ahaadaan oo meelay isugu yimaadaan ka doodaya ethnigoodii qabiilkooda ka doonaya arkimayso laakiin Black Lives Matter illa shalay mudahara reason bay u mudaharaadayaan waa dad la dulmiyay waa dad la dhibaateeyo booliska dilo magaraysaa booliska dilo dib baa loo geystaa rafaad baa loo geystaa waxa weeye waa dulmadiid baan nahay bay oraada war hawiya goor mud noqday dad la dulmiyo anigu laan dheera ku ogaa dad laan dheerayaalo barta Soomaaliya degan oo la yaqaano nasabe yaan ku ogeena hawiya goor mud noqday Black Lives Matter amal oo siyaasiga xanaaqaba ee shaqada laga fiijiyo ee shaqada laga rusqayaba uu hooli tuu qabto uu leeyahay anagoo hawiya yaa firi war hawiya ceebta ka daaya wallahi ceebta ka daaya ما أركيسان قبيل كلو Soomaaliyeed oo la daarood Lives Matter isaaq Lives Matter racween Lives Matter ma maqlaysid laakiin habeen iyo maalin waxaad maqlaysaa hawiya Lives Matter hawiya waan dulmanahay waan dhibanahay waa qeelinaynaa war siyaasiyiintiinan rag wax bartay ma ahe ragga siyaasiyiinta ee saxda ee cadkooda goostay ee ragga Soomaaliyeed la dhiil gareeraya ku daba feela waa Rooble waa Guudlaawe waa ninka la yiraahdo Cumar Finish 13 kursi oo Soomaali kala helin yay miiskaydii soo saaran laakiin nimankan calaacalka iyo bahdilka fiiriya qabiil kale oo Soomaaliyeed oo hor intuu qabsay isu tagay miyaartay waa maxay siyaasigu mu xisbi samaysto mu xisbi iyo siyaasad ku doodo xishoodkii buu Ilaahay idin ka qaaday xishoodkii baa nimanka siyaasiyiinta Ilaahay ka qaaday wallahi na beenayn laakiin hawiye والله ندير مدحو نو سارين
ونمان صوماليات متلات بيلايهين ميل بي مقرساي كتليان وصوماليا رئيس الوزراء كيهين maamul goboleedyada xukumaan cid macnaha xaqoodii duudsiisay male caasimadan inay majority ka yihiin cid walba waa ogtahay laakiin xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif maseer wala idin garbaashaya waana bil rabada maseer markaad farmaajo aqligiisa iyo maskaxdiisu aad gaari weyseen ee buwaagta uu akrinaya aad akhrin weyseen ee siyaasadda uu Soomaaliya la yimid aad gaari weyseen maanta ma maraysaa adoo madaxweyne soo maray inaad maanta ceebaysan tahay oo boor qabiil ku qoray aad hoos taagan tahay oo leedahay anoo reer hebele laakiin xasan runta lagu sheegay dhigay waa lagu maadsanayaa sheekh shariifow runta ku sheegay dhigay waa lagu qoslayaa nimanka meesha joogay inta kale yaanyo way aad baa la idinku maadsanayaa ummadii Soomaaliyeed baa sida idinku qoslayso markaad qabiilkii ballaaraa wiya la yiraahdo sharaf agtiisa ka weyseen ya $6 qaaqlayaal muqdisho dhex taagan nigta ku hayso oo afurki u gudbiyay ya soo aruruseen heerkaasu farmaajayda gaarsiiyay dafeer isku genius matihin isku aqli matihin isku meel ma garanaysaay ma mari kartaan meeshu habeen maro maalinna ma soo mari kartaan maalin meeshu habeen farmaajo maro wallahi baad maalin soo mari kar hawiye waxaan lay marka weliba cuqaasha iyo dhaqanka iyo labeenta beeshawiye yaa la hadlaya dhaqankiisa su'aal isweydiiya dad Soomaaliyeed baateen caasimadii dalka Soomaaliya deegaankiinay ku taala war miyaad aragteen siyaasiyiin iyo magaranaysaay Soomaaliyeed oo maanta saacadan aan taagannahay intay qabaa'ilo waaweyn oo aanan u qalmin in hool la keeno aan ka ahayn in nabadeen iyo dhaqan u yahay aan ka ahayn in intay meel isugu keenaan qabiil la yiraahdo magaciisa la ijaa'ifeeyo oo la yiraahdo annagoo hawiya yaa saa sameynayno annagoo hawiya miyaad aragteen qabiil Soomaaliyeed oo waxa sameynaya Allah labeeta Allah waa may siyaasiga kartidiisa iyo raganimadiisa iyo wax ku raadsada iyo xisbiyada uu ka mid yahay iyo wax ku raadsada wallahi been ma wuxuu ku raadsadaa aqligiisa ayuu wax ku raadsadaa kartidiisu wax ku raadsadaa laakiin magacan la ceebeeyay ee la jaa'ifeeyay ee la bahdilay ee laga dhigay African Americanka Mareykanka joogay ee la dulminayay ee dulmanaha ah ee maalin walba inay doodaan idaacada taagnaadaan rabaan war reerka magaciisu dhiga reerka siyaasiyiin bay leeyihiin wana la ogyahay siyaasiyiintooda meeshay maanta xukuumadda la socdaan xasan oo reerka shari laakiin dhageysta farmaajo sidoo idin waday oo idin bahdilay maanta ma taagantiin inaad boor qabiil hoos fadhidaan maanta ummadda Soomaaliyeed ileen beeshaad ka dhalateen Soomaali baa ka weyn dhageysta ummadda Soomaaliyeed maanta ma idin arkaysaa inaad tihiin qabiilistayaal aan xishoonin oo aan qaado dariiqa oo ummadda inay u horseedaan boob iyo dhac iyo kufsi inaad tihiin farmaajo macnaha ma idin tusay ummadda Soomaaliyeed fashilka un bad waligiina ku jiraysaan hooshana saas u soconaysa dhageysta markaan dhinaca siyaasadda soo noqon berita Africa Union baa afariisanis insha Allah hadii la yiraahdo waxa laga shirayaa arrimaha Soomaaliya waxa ka soo bixi doono go'aamo Afrikaanku ayagu ay ka tashadaan aayahooda u qaaska ay ka tashadaan yaa ka soo bixi doono insha Allah hadii la yiraahdo Soomaaliya horbay u soconaysa dhageysta marka hawiya iskuma jiray hawiya laba loo kala qaadaya hawiyaha daacadda ah ee islaamka ah ee muslimka ah ee siyaasiyiinta aqoon-yahanada leh ee degan ee muqdisho quruxdeeda iyo sharafteeda soo celiya karaamay ummadda Soomaaliyeed agteeda ka mudayn laakiin siyaasiyiintan qabiilistayaasha ee hawiyaha sheegtay waa kuwii isbaarada u taali jirtay ee laga a'uudu billahi minash shaytaani rajiim loo rajray ee wada gaandarigaha waligiin bay isaga haya hawiya live ismaara isaga haya orda caalamna sameeysta idin leeyahay Xasan Maxamuud iyo Sheekh Shariifow orda mudaaharaada waxa tiraadaan waan dulmanahay ilaa hadaba wad leediin waan dulmanahay orda qaadsidii madoogi banaanka u soo baxa idinku caawiye hadalkiin intaas ku soo xiraya waad bahdilantihiin intaan duqbrow anoo ah idinku soo celcelinayay ee sheegaya inaad qabiilistayaaltiin
oo weliba ma garanaysaa hal jifoo yar aad ka soo jeedaan yaan ummaddii sidaan u waday maskaxdiina ugu waday ee uga dhaadhicinayay shir baad u qabsateen boorna waad u samaysteen guul baan leh ummadda Soomaaliya laakiin waxa idinka badan Soomaalida uu dilooday dagaalka sokeeye Soomaalida ku soo rafaaday dhibkii Soomaaliya ka dhacay ee maanta neecawda iyo nabadda ay haystaan maanta dugsanayo kuwaasa idinka badan anigu waxaan leeyahay marka qabiil Soomaaliyeed kicin maayo qabiil Soomaaliyeed oo kale oo reero kale kicin maayo laakiin daaro Ismaaciilow ilmihi awowgiiyo waxaan wada arkaysaan waa la socotaa waad u jeedaan Sambaloosha waa taliyihii ciidanka Sheekh Shariif waa madaxweynihii dalka Soomaaliya ee ninka la yiraahdo Xasan waa madaxweynihii Soomaaliya waad arkaysaan waad u jeedaan baro maleynaya bigaraysaa waad u jeedaan oo arkaysaan marka indhaha korka kala socdo anigu idin oran maayo banaanka u soo baxa odayaal qaaqlayaal ah $6 siisaan meel hal la soo keenay dhihi maayo laakiin de hawiyana dhaqan buu leeyahay imaamuu leeyahay ugaasiyuu leeyahay garaadiyuu leeyahay sharaf bay leeyihiin meel bay dhaqankooda loogu tagu leeyahay uu wax ku sooriyay ceeb agtanada kama laakiin de magaca la jaa'ifeeyay ee siyaasadii loogu mulmulay ee kii xanaaqada hawiyan soo saaranaya intuu afarsiyo magacii u bahdirayo malaaqiyada iyo magaraysa imaamiyada iyo waasiyada iyo dadka magaraysa ee labeenta yaa laga rabaa inay yiraahdaan war magacan dhiga oo ragga siyaasad ku doonto oo ku aado inay yiraahdaan ayaga laga doonaya ragga siyaasaddaas ku haysaan siyaasad u aado waa rag Soomaaliyeed ayagaba qabiilay ka soo jeedaan qabiil ma sheeganayaan ordo siyaasadda u doonta qaabka raganimada u doonta ee dhiga qabiilka waa in lagu yiraahdo Farmaajo waa ka guuleystay cadawga hadduu yahay mid sokeeye iyo hadduu yahay mid shisheeye labadaba waa ka guuleystay عزيز محمود فرماجة وقارسينها تلاذة هوية لايف اسمها وعدو المرهي I can't breathe بتبهدل انت هدي حداد نرقت هاي او سياسي اتهاي او اقويهنا اتهاي واحد مسكح ضوضي قلبي قوضي حيريلد ويل كبورو مجوغية ويل شمايات جوغو اياد حيريلد ميدا كالتنا رقع وانا ولو شقي سرياتي دقيشت والله ولا يدينك أغلب بدي هاي سحن بلا يدين بهدلي سيدي فتاتيرتي بلا يدين كعياري أو حنا تاريخ قرمي شو ميل طالوي دنتو إذا كنت تلاس كعمستان إذا عدينا كهذا شانو تردان فرما جوان دليلنا فرما جو حوي إنا ترهدان بدنتي إذا كنت فيرم نيكل اللي يرادري أحمد مذوبي إذا كما قرن إن رجن إذا كلان ديريسيين يا شيخ شريف يا حسن الشيخ محمود يا صغير كسياسة يا عبد الرحمن عبد الشكور وش هي دقيش إن الرجل إذا كأغلب بديهم أو إذا كعيارة يارو حتى إذا كأذن أفصوالك الدبلوماسي هذا قرين يا ديسهم أحمد مذوبي يداني 6 توص بيدي كل شيء ما بدنا أي شيء إذا كنا هوية قبيل كلا يرهدو أنا يصدق إيه طبعا كتير هذا دارات بيجي هذا النمك قبل لا يرهدو والله بيصدق عيني بالوير دقيش والله بيصدق عيني بأحمد مذوبي يداني أو نمت داروضة أو قبل لا داروضة oo waliba madeerteeka taqaanay ogadeeka taqaanay yaa waxay kugu yiraahdeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo ninka la yiraahdo Abdulraxmaan si toos ah idinku sheeg oo la idinku yiri wallahi baysan dhacaynin baa la idinku yiri hawiye inuu 13 kursi oo dheer daarood inuu qaato ma dhacayso idinku yiri dagiis si toos la idinkama gaban kaasa la idinku yiri waxa doontaan iyo madaxweynaha raadinaysaan baabaada iska baadilka raasada waxa doontaan dhawaaqa la idinku nasiibkiina leedin sidaas uu idinku shaqaysanaya Dani Axmed Madow uu idin leeyahay orda dhawaaqa oo qabiilka iyo laakiin hawiyaha saxda ee siyaasadda yaqaano ee aanan meelahan imaanne oran sidii Black Liveski ana meelahan ooyina iska dhawaaqina iska baadilan meelahan imaan waxa way runta ogin xaqiiqda ogin oo ragga diiday ee miiska Dani Axmed Madow u qaracday ee ku yiraahdeen ma aanay waad qaldantiin وانا قلدنتين مقدسه وانا مقامي متلاد يلتا رجيري وانك اللي يراد غور وانك اللي يراد علي جودلا وانك اللي يراد عمر فرش وانك اللي يراد رئيس الوزراء دلك الروب اللي يا ميسكا سو سارتي ورفر باجو صدح يا 10 كاريرك والله لو ميل مريا احمد دنو خير مي دارود انغا مثلو نكر هدو يرجل عاوي بدحيش دقيشت حرنتو halkaas taagta dagaalka ugu nimankan Axmedo ninka la yiraahdo Sheekh Shariif waa iska wallahi dad ma sad u mareynayeen madaxtinimada dalka si qaldan bay ku soo gaartay si khaldan oo aan deganayn
oo aanan magaraysaa aqoon siyaasadeed aan lahayn yay gacanta ugu soo gashay magacan ee heleene karnidka ee madaxweyne inay soo noqdeen saas kale taana waxa idin cadeynayad arkaysaan nin heerka dalka ugu sareeyo ee lagu aaminay madaxweynaha dalka inuu maanta boor qabiil u dhajisto ana ma qoran karaan social media ka dhawaaqay wallahi ma qoran karo inuu boor qabiil qorto oo yiraahdo anoo reer hebel ka dhashay ana xukun qabanayo ana saan noqonay ee damiirkiisa aqliyadiisu ay siisay yaa in raggan lagu shaqaysanayo la bahdilayo lagu ciyaarayo oo si qaab daran waliba loo bahdilayo sidii ugu xumeed loo bahdilayo diishaga dhageysan daliba maal dhaxdaas idaacada ka hadla axmed madowna maal lawati idaacada ka hadla labaduba si sarbeebsan bay waxay u yiraahdeen muqdisho adeer macaani dadkeeda uu qoryaha qaato معناها مؤر إزدلا وحبض قاطع ست أسبوع لكن والله صربي وحلو يري حبض قاطع إزدفاع معناها أنت أنت كجر ترى وعاوي صدق إيه طبعا كان كرسي صدق إيه طبعا كان كرسي أغل كسرة إنه كو ماشى كبر لابو أحمد مذوب يدني مدام إعلان درياشي دارود ملها كسو جدا oo nimanka waligoodba nimankan hangoolka ku hayay xasiq maxamuud iyo reerkooda ay yihiin in ma garanaysaa intay xamar burburto baabaha noqoto dhaqaalihii dalka imaan jiray ka imaan jiray wadamada reer galbeedka meel walba ka imaanay in loo weeciyo Kismaayo iyo Muqdisho oo la yiraahdo Axmedow iyo Dani yiraahdaan war wixii ayaga cawaanta ayaga iscunay xukunna ma yaqaanaan illa xukuumada dooni meeyaan cawaanta ayaga isbaabi'inaya in la yiraahdo oo halka ka qoslaan waana la ogyahay wax loo qariyo ma reeb Puntland dadka la yiraahdo uma qariyaan nimankana wiyaha la yiraahdo haddana siyaasigan xasiq maxamuud yaa hoosta ku wuu og yahay waana meel lawatana waxa soo qoray nin siyaasi ah oo madaxweyne ka soo noqday Hirshabeelle oo la yiraahdo Cali Casuble yaa soo qoro yiri nimankan Axmed Madoobe iyo Dani hawiyaha inay xukunka qabtay jeceli sababtoo baad bay ka qaadaan waxa weeye qabiil ahaan bay kula dhiil gareerayeen lacaga laga dhacay baa nimanka wiy magaraysa dad uguma jirta ninka daarooda hadda madaxweynaha meeshka يا وحكير وانا قلتك دارودي وقريسا يعني وانا هويمي هدباديسان ودعيسان دالك سيو في عم باللوقة منيا سيو ونكسن باللوقة منيا نكا سوقري والله بين ما ومدحونا روتيك هيرسبي الله سوقري نماك هوية ويبادي جروا دوكتين مقريسا بيقاجر بي أورنجرين حرير كان أجرني مدحونا حاسق محمود واقو مدحونا بيقاجر بي أورنجرين حرير كان أجرنا الشيخ شريف انتو مدحونا مقريسا واللوغي والله الصعدة نكان هذا اسكرير ويه بوس كودينا ايغو كفديا 4.5 كا وحاوي نغلطه وكير هذا بعد غرسه نغلطه oo hayray maana magaraysaa saqjaadnimada noocaas kaleete waa sababtay farmaajo u diidayin ula dagaalamayaan ula buuqayaan laakiin de nimankan mas'uuliyiinta ee beeshan magaceedii la bahdilay laga dhigay African American Mareykanka joog amal laga dhigay waxa way intooda wanaagsan ee aqli u saaxiibka ah ee sharafta leh ee karaamada leh ee siyaasadda iyo dhaqanka u kala soocayeen siyaasadda iyo dhaqanka uu kala soocan yahay way garanayaan siyaasiga xaqooda hadduu xaq ka maqan yahay u soo dhicireen way la socdaan siyaasiga hadduu xaq ka maqan yahay xaqooda u soo dhicinay qorqor muxuu ku dagaalamay Axmedow ninka la yiraahdo Dani isku dhaceen 13 kama hadli kartid iyo maya waa dadku inay sinaadaan fowda socoto buuq maya fowda ma socoto Muqdisho 4 milyan oo qof baa ku nool waa inay matalaad heesaab u yiri ninka la yiraahdo qorqor farmaajana wuxuu yiri waa yaas waa inay matalaad heesaab u yiri sidii buu ma garanaysaa baashu qaranka loogu duugo wariye dhamaantii farmaajo waa guuleystay nimankii intii ugu dambeysay ee la rabay in umada la tusana shalay la yimaadeen maxaa ka soo baxay ma afar waalan oo meeshan $3 la siiyay yaa meesha la suuq tagay haddana ma qajilayaan oo ma xishoonayaan oo ma ornay wani nin siyaasi ee baa tahay madal qabiil iyo meelahan isaga dhaxbax oo karaamadaada dhowr oo berri baad mustaqbal leedahay oo sharaf leedahay karaamadaada dhowr hatta waa orawaan waa soo dhax fariisteen anoo Mooriyaana anoo isbaarista anoo dadka dhaco anoo rameena umuraha kufsada anoo naacan noqonay war farmaajo buu iyo qalin buu dalka ku xukumayaa farmaajo buug iyo qalin dalka ku xukumay waana guuleys madaxweynaha xukuumada guuleyso annagu waa garab taaganahay haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed midda kale shariifkii booskiisi isaga soo celin ninkaas nin dhaamo oo dhalinyarada la shaqeey karo oo isfaahmi karaan ninkaas jiro meeshan kale waa iska baxdilan taadiyad waa garashay si aan loo baahnayn oo qaab daran oo wada shaqeyn fiican dhici kar iyo iska wataan madaxweyne waa ku taageersanahay garab kaagaanahay waxa weeye wad guuleysanaysa qabiilna laga bax intii qabiil aaminsaneedna oo duqbalow si odaysan oo nidaamsan baan wax ugu sheegay oo kula hadlay insha Allah haduu ilaahay waxa Soomaali ku soo batay oo aad maanta u badan wiilasha iyo gabdhaha
qarankooda jecel ee qarnimada jecel ee qabiilka u fiiri ee ardaraysan farmaajo inuu yahay wali ilaahay u soo diray Soomaali oo dhibaatada maanta Soomaaliya hays inuu ka saari karo dadka aaminsan yaa aad u badan madaxweyne afartiina waa fashilmeen shirka siday rabeen iyo xabadaha la qaadan iyo baqbaqda wadeen waxa weeye waa ka dhicisoowe inta kaliya ku dhacdayna waxa weeye in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu weel loo yahay oo qabiilista u yahay oo bahdila yahay oo qabiilka ka cishoorin يا ستوس ومدى سوماليات أتصنعوا درنا سومالي هقولي ستو رين نبط ينورون وين قولي سرينا إن شاء الله هدو إلهي رادو فيريا متكن لو يدي شيء وكسي بحيا no matter what 2 years مدحوينه لوجو مدر لكن أيها كسر عليه no matter what هدي اللي يسوي ماذا ومعمول قبلات يدا الدولة الفدرال كسوي ماذا أو هشيس أو مجرد ساي political agreement الدورشة اللي جاره no matter what وقت إن دورشة لو قبته وقت بيقوب عنتها هذا الكلام دقيست إن دورشو لقبته أما ضد بنات هالنقطة أما مدة one man one vote هالنقطة وقت يوبا عنتها مركو عايزين شيء عندي حتى political agreement اللي جاب still دورشة إيه وقت اللي جارشيو وحيوبا عنتها إيه وقت للشيء فرماجرة وجوجية أسانة دلكن دورشة كقبرية إن شاء الله هدو إلهنا سومالي أنا هقول استو حسن قبيليستو ودع إن شيخ شريف قبيليستو ودع بالرمضان بعد مدة الصومالية قبيلات إيه قرن إذا كانوا أف بيجله ألا سور تاجن تنادير والجين إيه اللهين أو يا صوتورة دلك الدولة بولي ما نور بحد كويريسا أو بجريسا يبورو سوقادن إن تنادي رهبل بلاك لايف لايف سمار إن ألا سوستن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.